habeen ka hor khudbada aad ka jeedinaysay dhanka galmudug waxaad sheegtay in wax macnaa aysan kuugu fadhiyin aadaanka masaajidu haddii loo baahdana aad bixiri doontaan haddii culimada doorka laga rabo la dagaalanka al-shabaab inay ka qaadan waayaan arrimahaasi bal dadka u faahfaahay waxaad ula jeedin horta sidaa u dhigtay uma dhigin eraygu wuxuu ahaa waxaan aad u dhaliilay oo kaalintoodii gabay ninkii wadaad la oran jiray wadaadadu waagi hor laba ay kala qaybsanaayeenoo nimankan la yidhaahdo ictisaamka oo xag jirku ka baxeen iyo niman iyagu markii hore ridin jiray oo nimankan sunnada iyo suufiyada iyo heema iyo waxarti isku dar magacyada kala gadisan leh labadaasay ahaayeen labadu qolob markii hore waa ridin jirtay waxay oran jireen kuwana waa khawaarij kuway ka baxeenna waa bidco waxaasay oran jireen labadii oo isku daysan hadda isku mid ah waa ka aamuseen nin wiilkan wax qarxinayana waxa soo bixiyo loo soo akhriyay waa fikirka dawadiisina masaajidkay taala iyo wadaadada ninkan diinta akhriyay taala haddii waxa laga aamusana waa raalli ahaansho wadaadkii markuu aamuso oo uu sheegi waayo fikirkan khaldan inuusan fikir islaamka shaqo kula ahayn falka ka dhashaan uu yahay fal wuxushnimo ah oo islaamka soo horjeeda fal ka dhashaan uu yahay fal wuxushnimo uu yahay wadaadku uu sheegi waayo macnaheedu wuxuu noqonayaa diinta saxda ah shabaab baa haysta dadka leenayana waa ku saxan yihiin aniga marka waxaan wadaadow masaajidii baad ku jirtaan waxbaad akhriyeysaan waa tukanaysaan shabaabna ma soo qaadaan shabaabna waxay ku dilayaan waa diin annagana masaajidii ma gallo aniga masaajid baa igu dhegan mana ku tukado inuu xiran yahay inuu addimo inuusan addimin in haddeer la dunsho wuxuu igu fadhiya lama arko diin caybiga ma aha qof iga masaajid jecel ma jiro يعني سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله وحكو جرا نين قلبي جسم مساجد كحرين يهي تتكاسن كم ده هنجرانو مساجد كاس وحا يهور استاجي وشيطان كهور تاجن حبض الله فديه حدان أوده أدين كهران كإلى دح فريسان لها الصبح مركان صلاة كذب سوء آخرستنا وكسو بحلها anigii marka hadaan masaajidka gali waa iyo kumanaan ila mid ah oo Soomaaliya masaajidka carareen wadaadkan min masaajidka uu ku haray waxba ka sheegayn masaajidku wuxuu ku fadhiyaa masaajidku wuxuu ku fadhiyaa masaajidku horta waa xarunta islaamka wax ku daaweysto waa isbitaalka muslimiinta waa xabsiga muslimiinta waa iskuulka muslimiinta intii midna ma aha masaajidkan marka wuxuu yahay magaca masaajida qaylu nagu dhibaa wadaadka wax ka akhriyaan wax akhriya wax ku fadhiya ma aha sababta wuxuu ugu adkaa munkarkan ugu adag waa dhiigga islaamka dhiigga islaamka la daadinay hadaadan ridin ninkii daadinayo diin ahaan aan u biskayn waxa wadaadtaana ma jiro masaajidkuna masaajid ma soconna mayso hal ogow waa ku sheegaya wallahi inaan soconay 10 sano 12 sano masaajid Soomaaliya ku yaal kuma takin marka masaajidku markaan dibadda aado inaan soconayn in wadaadda inta masaajidda noo farfadhiyaan ay markii dad la laayo تربية الأولاد خطبة كو أخريان صعون ميس أنا أقول مساجد بناك فانا وحرينا أما الدجال كين لقليه وهي هذا جو أفكار بدو طبعا مساجد كل عوينا عدد وكنت كتير أيه وذا مسكينة أو أمن جيساء مركز عدو حلقتان تشرين سو قول عيال شباب إنه الدجال كين لقليه وسؤال فعلا أنا أقول مركان هذا أذكر توتو ويش عضبانا كل إن أنت كارم بانا ضدكم مركز كل أسوء تشيستان oo adigu aad u soo jeesto saxafiga ah oo wadaadku u soo jeesto oo ka dariiqada u soo jirto oo muxaadaraad banaanka la dhigo oo meelaha la suugaan loo soo baxo oo la waa daalimiin waxa fikirka wata la yiraahdo ma jirayaan waa tagayaan aniga marka wiish cadayd baan hadda kaliya gaar dadka ana ka takooran bulshada inteedii kale ay haystaan marka anigu waa takoorka waxaan uga baxayaa oo masaajidka tagaya marka kulliga aan wada sheegno oo wiilka wax ku hordilay masaajidka guriga ka soo baxay dad baa iskale wiilku illa kama iman wiilka wax dilayaan dad ku dhashay odayaasha masaajidda fadhiya iyo kuwa meelaha gabran wiilashooda waa al-shabaab bari baad arki doontaa markaan maxkamad soo saar hortooda ku leeyno wiilkiisii buu ceshan waayay oo daaweyn waayay ila wiilka hadaan odayga oranayn fikirka shabaab waa khaldan oo la aamuso wiilka shabaab raacaya fakar baa laga dhaadhicinaya lacagna waliba waa loogu daraya marka waxaan rabaa anigu hubkii ciidanka waa ka tagaya
haddeer barri subax baan ka tagay hubkii ciidanka masaajidda wadaadada jooga hay soo baxa sameeyeen dadka isugu yeereen banaankaan tagay soo baxa ka qayb galaya anaan hal ciidan wadan gaari caadiyana wadanaya aniga wadaad ku xaran inaan inta banaanka soo istaagno aan dhiraahno shabaab idiyeeli mayno diinta aad haysataan diin islaam ma aha dadka aad leenaysaan xaq darraad ku leyseen wadaadadu halka inay soo istaagaan marka iyo bulshadu laakiin marka wadaadku aamuso wuxuu raalli ka noqday wuxuu daaweyn dhakhtarku hadduu qofka daaweyn ka war inta dhagac qaado dhakhtarka dhagac dad qofkayso ama isbitaalka weyn aad qofkayso uu daaweyn waa anigu ma daaweynay yiraahdo qofka ma daaweysmiya cudurkan dawadiisi wadaadka haya irbadibana guri ku xareysta muxuu istaala marka dhakhtarkii isbitaalka dadka daaweyn isbitaal ma loo aqoonsan karaa ma yadhe looma aqoonsan karo masaajidka aan diin shabaab lagu ridiyo laga akhriyana masaajidka aqoonsan mayno waa tahay su'aal kale inuu gudbinaa hadda ka hor waxaa jirta ayaamihii lagu magacaabay in aad loo hadal hayay heshiis odayaal ka mid ah qabaa'ilka gobolkan iyo al-shabaab dhex maray oo markaasi noocu doona ha tilmaamay heshiiskaasi arrintaasi ay fajac ku noqotay dadkii kale ee reer Puntland oo markaasi uu u dhisnaa maamul xagee arrimahaas ku dambeeyay mase ahaayeen wax jira heshiiska horta maca dawladda hadda Saciid Cabdullaahi hogaansho waa ka horreeyay dawladdii hore intii jirtay waa odayaal tageen odayaashu siyaabahay rabaan ha u tageen xal badan bay bideen malaha inay al-shabaab la soo heshiiyaan laakiin labada qof heshiinaya marka aniga adigu heshiis kala qoranayno waa inaan anna wax wataa adna ad wax wataa la isdhaafsadaa heshiis waxaa la galaa laba jaanib oo waxa wada haysta nin bari ra jooga oo aan wax haysta la arag dhumaaleesu ku jira anigu barwaaqadaan haystay kaalay ila yeelo hana idilin hadee raganimada xataa qayb kama aha waa dacfi meesha ugu hooseysa odayaashii de kulli hadda wuxuu kalifayba annaga colaadi nagama dhaxayso odayaal akhyaar weeye wadankay joogaan waxyaalaha laakiin waa ka sheekaysatay Soomaan ilaa hadda ka hor waxaa jirtay in Puntland madaxdeedu tiri qofkii al-shabaab caawiya aga taageera saahan dagaalka lagu la jiro al-shabaab uu mid la mid ah la galiyo marka hadiiba aad arintii xilligan xilka hayay hadii inta oday taga shabaab la soo shiimaado odagal meesha uu ka soo galaan ku toogan lahaa hadii anigu xilliga xilka arintaas dhici lahayd xaqi baan ku sheegay waa dambiyada ugu waaweyn laakiin aniga hadda odayaashii waagi arinta lagu sheegay wax badan baan ka wada shaqeynay wax badan baan ka caawiyo dawladnimada u baahan ay igu yimaadeen akhyaaran wada shaqeynay waaye de haddana dambiilayaal dadka kama ah iyo hadda oo dawladda xilliga jirtana dambiilayaal kama dhigin Puntland dambiilayaal kama dhigin laakiin haddana u sheegaynaa qoladii isku daydo aad soo laabto walaynayna markay soo laabtaan halkaas ku tooganayna barxadda cidna laga dambeyn kartaan ma jirto hatta xirib mayno ما فهميسا waxa soo haray bulshada u dabacsanteedu kuma maalaan cidda shaabina la heshiiso anaga la heshiinayna noo keena shaab sicina la heshiin lama rabo anaga bilaabayna noo keena waa la doodaynaa waxooda inay diinahay baan sheegnaa bulshada ka mid noqonayaan haday xukunka rabaan xukunka qabanayaan haday dhaqaale rabaan dhaqaalaan siinayna dadka la inta ka daayeen cid shabaab keeni kartaa ma jirto cid soo heshiin kartaa waxa la soo heshiiyay heshiis lama yiraahdo waa idin dulownay hana laynina lacagna naga soo doonto waay heshiis oo la galay agreement shaab la galay hanoo keenay haduu heshiis soo qoraal yeeshama ani adiga markaan heshiinayna soo inaan qoraal laba jaanib aan saxino communicate aan leen aan wada saxana ma heshiis la galay ma jiro dulli baan nahay macna malaha anagu daanyeeraan nahay dal gaalka ay leeyahay deganahay lacagtana ka gurta annagana hana laynay ku soo yiraahdeen idan anagu ayaamihii u dambeeyay waa gaalkacyo waxa ka muuqday isbedel iyo diilo leh oo dad badan ku tilmaamayaan in ay wadadii nabadda cagta saaday magaalada tan aan joogno maanta marka waxa la isweydiinayaa maxay tahay sirta ka dambaysa gaalkacyo muddo dheer xal loo waayay nabadgelyadeeda maxaa meesha ka baxay oo horay u shaqeyn waayay waxa u shaqeyn waayay waxa jilcay hay'adihii dawladda markii hore booliiska jilcay maamulka jilcay dadkiiba dawladnimadii ka dhex arki waayay awood dawladeed arki waayay awoodii dawladnimada soo noqotay iyadaana keentay in isbedel yimaado dadkuna dawladda aaminaan dawladdiina waa shaqaysay oo hay'adaheedii iyo administrationka dawladdu iyo amnigeedii baa dib u soo laabtay dadkuna waa la shaqeeyeen oo dadku hadee iyaga amniga keensaday hadda jira la shaqeyn ay iyagu keeneen ciidamada iyo amniga la shaqeeyeen
iyo dhiirigelin ay dhiirigeliyeen ciidanka iyo xog ay soo gudbiyeen iyo wanaag ay ka shaqeeyeen iyo tahniyad ay u tahniyadeen dadka ka shaqeynaya ee maamulka shaqeynaya baa waxaan ku yimaadeen dadkuna sidiisaba wax dhiba ma leh hadii dawlad uu helo oo dawlad u shaqeyso sax uu helo dadku dad fiican weey marka awl jilec institutionka dawladda ah ku yimid baad wax dhibta keenay haddana jileeci baa baxay